الله والله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalka la cusub fadlan subscribe saar haddii aad channelka cusub tahay. insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa masna ku fahmi doonaa dowrarka ganacsiga ee horumarinta dhaqaalaha. waliba waxaa ku jira tiro badan oo ganacsada ah kuwaas oo meherado maalin walba sameeya. inaad tahay ganacsade sidii aad u maleynaysay uma fududa. waa ogtahay in ganacsigu qayb weyn ku leeyahay horumarka dhaqaale ee waddan kasta. saameynta horumarka dhaqaalaha adiga oo ganacsada ah waxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad wax badan ku biiriso horumarka dhaqaalaha ee waddanka aad ku nooshahay. ma doonaysaa inaad wax ka ogaato? kuwani waa doorarka ganacsiga ee horumarinta dhaqaalaha. 1. abuurista shaqaale. ganacsadayaashu waxay bilaabaan mehradooda ayagoo shaqaalahooda ugu horeeyaan. mar haddii ay horumarin karaan ganacsigooda si heer sare, waxay shaqaaleysiin doonaan dad kale oo iyaga ka caawiya. sidaan ognahay, shirkadaha qaarkood waxay u baahan yihiin xirfado gaar ah si ay qayb uga noqdaan. inkasta oo ganacsatada qaar ay shaqaaleeyaan dad badan oo leh xirfad asal ah oo inta badan ugu baahan yihiin, waxay la micno tahay inay abuuraan shaqo badan si ay ugu caawiyaan qof inuu helo nolol wanaagsan. 2. horumarinta tayada nolosha. inkasta oo ganacsadayaasha ay qaataan koox dad ah inay shaqaaleysiiyaan, waxay la micno tahay inay siiyaan shaqaalahooda fursad ay ku helaan nolol wanaagsan. waxay leeyihiin mushaar bil kasta, waxay buuxin karaan shuruudahooda nololeed, waxay iibsan karaan wax kasta ay u baahan yihiin, waxay bixiyaan wax dheeraad ah xagga wanaajinta tayada nolosha qofka. 3. kordhinta dakhliga. waxaad dhihi kartaa in dakhliga soo gala qofka uu kordhayo halka dhaqaalaha uu dal gaar ah si wanaagsan u korayo. mar haddii ay bulshooyinku helaan dakhli ku filan bishii, wadarta dakhliga qof kasta ayaa weliba kori doonta. waxay ka dhigaysaa dadka ku xeeran mehradooda inay sidii hore ka fiicnaan doonaan. 4. caawinta kobaca xarumaha kaabayaasha. inkasta oo ay jiraan warshado, haddana markii ay ku yaalaan gobol gaar ah, waxay ka caawisaa gobolka wax badan inay kusoo koraan dhismahooda kaabayaasha. asaasidda ganacsiga ee gobol gaar ah ujeedadiisu tahay in lagu kobciyo xarumaha kaabayaasha, dhismooyinka kaabayaasha sida dhismayaasha, warshadaha, buundooyinka iyo wadooyinka. 5. dhoofinta badeecada. markaad socodsiiso meherad, waxaad u baahan tahay inaad haysatid fikrado badan oo aad u fiican si aad u ilaaliso kobaca ganacsigaaga. maalmahan waxaa jira fursado badan oo aad ugu diri karto badeecadaada wadamo kale. kaliya hubso inaad ogtahay waxa ay tahay inaad sameyso ama aadan sameynin si aad u dhoofiso badeecada iyo sidoo kale shuruudaha shayga laftiisa. 6. kordhinta dakhliga qaranka. mar alla markii aad badeecada ka iibiso wadamo kale, waxaad kordhinaysaa dakhliga waddankaaga. sidoo kale waxaad ku biirinaysaa dadka kale ee waddankaas inay wax ka ogaadaan ummadaada. si kale haddii loo dhigo, waxaad siisaa kuwa wax iibsada fursad ay wax badan uga ogaadaan ummadaada. 7. adeegsiga tiknoolajiyad cusub. maalmahan waxaad aragtaa ganacsato badan oo adeegsanaya tiknoolajiyad cusub si ay ganacsigooda si wanaagsan ugu maareeyaan. fadlan muuqaalka haddii uu ku cajabiyo, subscribe saar.